waxaa maanta sharaf noo ah in aan daahfurayno imtixaankii shahaadiga ahaa oo run ahaantii sanadkan ka duwan sanadihii hore siduu agaasimaha guud sheegay. waxaa imtixaanka maanta fadhiisan doona 34,600 arday, wuxuuna ka dhici doonaa 112 xarumood oo ku yaala caasimadda iyo dowlad goboleedyada. runtii mudane ra'iisul wasaare, sidaa la socoto imtixaanka qabanqaabadiisa waxay soo bilaabatay muddo annagoo og duruufaha maanta dalku uu ku jiro oo xanuunka COVID-19. waxaa laga maarmaan noqotay ardayga Soomaaliyeed in uu helo qiimeyntiisii si uu u sii wato waxbarashadiisii jaamacadaha iyo howlihii kale u baahnaa. waxaad saan la soconno kulankii aad hogaaminaysay oo golaha wasiirada ayaad ku go'aamisay in imtixaanka la qaado adigoo la tashanaya golaha wasiirada iyo guddigii ka hortagga COVID-19. waxaa maanta goobjoog u tahay imtixaankii inaan daahfurayno. waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo in imtixaanka si qurux badan u dhammaado. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo mar labaad ciidamada amniga oo ka qayb qaadanaya imtixaanka, gaar ahaan booliiska Soomaaliyeed. waxaa ka qayb qaadanaya imtixaanka 2,600 oo booliis ah caasimadda iyo dowlad goboleedyada. mudane ra'iisul wasaare, waxaan rajaynaynaa imtixaankan hadduu ilaahay yidhaahdo inuu maalmo socdo. maalmaha uu socdana waxaan rabaa inaan ka codsado ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay u fududeeyaan ardayda. waxaan kaloo codsanaynaa in hay'adaha amniga iyagana sidaa si la mid ah ay fududeeyaan isu socodka, isla markaana la garab istaaga ardayda Soomaaliyeed. mudane ra'iisul wasaare, tan waxay qayb ka tahay horumarka dalku uu ku socdo. sidaad la socoto sanadihii aan joognay waxaad mar walba qayb ka ahayd ama goobjoog ka ahayd tirada korarka ardayda ee ka qayb qaadanaya imtixaanka iyo soo kabashada mataqaanaa nidaamka qiimeynta ardayga Soomaaliyeed. waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo in hawshaas hore usii socoto. tan waxay markhaati ka tahay in maanta imtixaanka uu ka dhacayo degmooyin badan oo siduu hadda agaasimaha sheegay wuxuu ka dhici doonaa imtixaanka degmooyin aad u fara badan ay ku jiraan degmooyinkii ugu dambeeyey oo laga xoreeyay nimanka nabadiidka ah. annaga muhiimadeenna waxay tahay haddaana wasaaradda waxbarashada in meel walba oo arday Soomaaliyeed uu joogo aan gaarsiino waxbarashada, taasoo ahayd ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo aad qayb ka tahay. innu daahfurnay imtixaankii galaaska form 4 ama galaaska 12aad ee dugsiga sare, iyadoo aynu la halgamayno ka hortagga iyo difaaca cudurka COVID-19 ee dunida ku faafay. intii uu dilaacayna runtii jawaab iyo dadaal fara badan oo waafi ah ay xukuumaddu samaysay, madaxweynuhu sameeyay, ra'iisul wasaaruhu hormuud ka ahaa. meel fiican buu marayaa maanta innagoo tallaabooyinkii loo baahnaana fulinayna ayaa imtixaanadii aynu daahfurnay. secondary schoolka galaaska afraad ardaydu ay qaadanaysaa imtixaanaadkoodii. waxbarashaduna waa soconaysaa. halganka wax kasta oo inaga hor yimaada ama amniga ha noqoto ama cudurkan dilaaga ee hadda dilaacay ha noqotee isna waynu wadaynaa. waa arkaysaan in maanta 35,000 oo arday ku dhowaad ay imtixaanadii u fadhiisanayaan. degmooyin fara badan iyo gobollada ay uga qayb galayaan si ay uga qayb qaataan imtixaanka shardiga ah oo secondary schoolka inuu ardayga ka gudbay iyo in kale uuna u sii gudbo heerarka kale ee waxbarashada ee jaamacadda. waa markhaati baa ka tihiin amnigeenu inuu fidayo, dowladnimadeenu inay fidayso, waxbarashada inay tayadeedii sii kordhayso, waxbarashada iskuullada weliba dowladdu ay maamushaa intii xukuumaddani jirtay ay ballaadheen. waan ku dadaalaynaa weli si halkii loo baahnaa waa ku soconnaa, maynaan gaadhin ilaa aan gaadhno 100% ilmaha Soomaaliyeed in uu iskuulka aado oo uu waxbarto. aynu la dagaalana jahliga, qoris akhris la'aanta, aqoonta aynu dhisno oo aynu ballaadhino, maskaxda ilmaha Soomaaliyeed aynu korino oo kabcino oo dhinaca wanaagsan ee wadaniyadda ah ee nabadgelyada ku dhisan oo inuu nabad ku noolaado, nabadna lagula noolaado ilmuhu ogol yahay, aan maskaxda laga meedhin. manhajka aynu rabno inaynu ka turjinaa kaa weeye mid nabad ku wada noolaansho ah, mid dal jacayl ah, mid wadaniyad jacayl ah, mid isku xidhnaansho ah, mid bini'aadminimada iyo islaamnimada iyo qofnimadaba wax taraya, Soomaalinimada wax taraya. marka halgankaasaynu ku jirnaa. maanta guul bay noo tahay sanadkii afraad inaan daahfurno imtixaanka oo 35,000 oo arday ku dhowaad maanta ay u fadhiisanayaan. Soomaaliya ha noolaataan leeyahay, ha israacdo, ha wada jirto. waa mahadsantihiin.